kadib markii xukunka laga tuuray Saddam Hussein. In badan oo ka mid ah raggii isaga talada la hayay oo uu ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenkiisii ayaa maxkamad la soo istaajiyay. dhowr bilood maxkamad socotay kadib ayaa waxa ay ku soo gabagabowday in tiirka la wada geeyo dhammaan dadkii lagu helay dambiyada inay geysteen. raggaasi waxaa xukumay waxaa ka mid ahaa xaakim la yiraahdo Rauf Abdulrahman oo ahaa madaxii ugu sarreeyay maxkamadda dambiyada ee dalkaasi Ciraaq. Rauf ayaa waxa uu ahaa dadkii ugu horeeyay ee ku soo oogay dambiyada madaxweyne Saddam Hussein iyo dhammaan intii isaga gacanyaraha u ahayd. barnaamijkeena maanta waxa aynu ku lafa guri doonaa Rauf Abdulrahman cidda uu yahay iyo wixii ku dhacay Saddam Hussein markii uu xukumay kadib. daawade haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar. mahadsanid. Rauf Abdulrahman waxa uu ahaa garsoore aad looga yaqaano gayiga Ciraaq oo dhan, sidoo kalena waxa uu ahaa ninkii lagu aaminay inuu maxkamadeeyo Saddam Hussein madaxweynihii dalka Ciraaq. maxkamadeyntaasi oo qaadatay muddooyin kadib ayaa ninkani waxa uu go'aankiisa ku adkaystay in ciqaabta ugu dambeysa uu mariyo Saddam Hussein. sanadii 2006 waxaa xukun dil ah uu ku riday Saddam Hussein isagoo amray in la daldalo si uu Saddam Hussein u dhadhamiyo xanuunka ay leedahay dhimashada. balse waqtigu waa wareegto, nafsiguna waa maseegaan. 11 sano kadib ayaa garsoorahani waxa uu u gacan galay ururkii argagixisada ahaa ee la magac baxay dowladda Islaamka. Rauf Abdulrahman ayaa sida ay ku soo warantay mareegta Daily Mail ee ka soo baxda dalka Ingiriiska waxaa la qabtay isagoo wata dharka haweenka kuna dhuumaaleysanaya qaybo ka mid ah magaalada Baghdad sanadii 2014. 8 sano kadib markii uu amray in dil lagu fuliyo Saddam Hussein. 69 jirkan ayaa la rumaysan yahay inuu u gacan galay kooxda Daesh 16 bishii Juun 2014. 2 maalin kadibna waxa ay kooxdu amartay in la daldalo oo dil lagu fuliyo xaakimkaasi Rauf Abdulrahman, laguna dilay magaalo banaanka ka ah caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad. walow dowladda Ciraaq ay ka gaabsatay in ay sheegto qabashada iyo dilka xaakimkaasi, ayaa haddana waxaa si toos ah u shaaciyay in Rauf Abdulrahman la dilay xildhibaan reer Jordan ah oo la yiraahdo Khalif Ataya, isagoo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri madaxii maxkamadda dambiyada ee dalka Ciraaq ee xilligii la maxkamadeynayay Saddam Hussein ayaa la xukumay dilna lagu fuliyay kadib markii ay qabteen kooxda lagu magacaabo dowladda Islaamka, sida ay ku warantay wakaaladda fadhigeedu uu yahay dalka Masar ee la yiraahdo Al-Maysroon. Ataya oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri xaakimka Rauf Abdulrahman waxa uu isku dayay inuu ka baxsado dalka Ciraaq iyadoo xilligaasi intiisa badan ay gacanta ugu jirtay ururka isku magacaabay dowladda Islaamka ee xukumayay qaybo ka mid ah dalka Syria iyo sidoo kale Ciraaq. waxaana la sheegay inuu watay dharka haweenka iyada oo ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah dagaalyahanadii ururkaasi dowladda Islaamka isku magacaabay. xaakimkan ayaa waxa uu ahaa ninkii gacanta ku hayay dacwadda ka dhanka ah Saddam Hussein sanadii 2006 isagoo ku soo eedeeyay Saddam inuu si bareer ah u dilay in ka badan 148 qof oo Shiico ah, laguna dilay magaalada Dujayl ee dalka Ciraaq sanadii 1982. eedeymahaasi oo uu iska bari yeelay Saddam Hussein, balse Rauf ayaa waxa uu go'aan ku gaaray xukun ah in la daldalo Saddam Hussein kadib markii in ka badan 5,000 oo eheladii dadkaasi ah ay ku marqaati fureen Saddam, isagoo sheegay in Saddam uu ka dambeeyay dilkaasi uuna mudan yahay in la daldalo. Saddam Hussein ayaa la daldalay 30 bishii December oo ay ku beegnayd maalin Sabti ah oo ay muslimiintu caalamka u dabaaldegayeen ciidda Carafo, taasi oo muslimiin badan ay ka xumaadeen. laakiin Rauf Abdulrahman ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta sanadii 2008 waxa uu ku dhaleeceeyay qaabkii loo daldalay Saddam Hussein iyo xilligii lagu soo beegay, isagoo ku tilmaamay in ay ahayd qaab wuxuushinimo ah. wixii intaasi ka dambeeyay Rauf Abdulrahman waxa uu wajahayay hanjabaadyo ugu imaanaya rag Saddam ka soo horjeeday iyo sidoo kale kuwa Saddam taageeri jiray oo ay ka mid tahay kooxda lagu magacaabo dowladda Islaamka.
saddex bilood ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ururka Daacish. Rauf Cabduraxmaan ayaa dowladda Ingiriiska ka dalbaday magangelyo siyaasadeed kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay dalka UK u yimaadeen safar dalxiis ah, balse nasiib darro dowladda UK waa ay diiday in ay aqbasho dalabkiisa. dowladda ay hogaamiyaan madaxda u badan Shiicada ee dalkaasi Ciraaq ayaa Saddam iyo raggii maamulkiisa ka tirsanaaba waxa ay u haysteen gumaadyo la sheegay inay ka geysteen dalkaasi Ciraaq 80meeyadii. taasi waxa ay keentay sidoo kaleete in la maxkamadeeyo madaxweyne ku-xigeenkii dalka Ciraaq ee xilligii Saddam, Taha Yassin Ramadaan, isagoo loo haystay inuu ka qayb ahaa dilkii 148 Shiicada ahayd ee la sheegay inay dishay dowladdii Saddam Hussein. dadkani ayaa sida ay sheegeen markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda waxaa lagu laayay howlgallo lagu baacsanayay rag la sheegay inay ka dambeeyeen afgembi dhicisoobay oo ka dhan ahaa Saddam Hussein sanadii 1982. Ramadaan ayaa lagu helay in dembigaasi uu galay bishii November sanadii 2006. sidoo kalena Ramadaan ayaa waxaa lagu helay inuu ka dambeeyay masaafurin, jirdil iyo inuu ka qayb qaatay dad kaleeto oo la dilay, waxaana ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. balse nasiib darro bil kadib ayaa waxaa racfaan qaatay dadkii isaga ka soo horjeeday, waxa uuna sababay racfaankaasi in maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ay ku riddo xukun dil ah Ramadaan. laakiin Ramadaan ayaa isaga waxa uu ku doodayay inuu bari ka yahay waxa loo haysto dhammaan, isagoo sheegay in awoodiisu ay ku koobnayd arrimaha dhaqaalaha ee xukuumadda dalka Ciraaq ee uusan wax shaqo ah ku lahayn arrimaha amniga iyo qaarijintii loo geysanayay dadkii ka soo horjeeday Saddam Hussein. Ramadaan ayaa waxaa la daldalay 17 bishii Maarso sanadii 2007. dhacdadaasna waxa ay ka caraysiisay muslimiinta sunniga ahaa ee ku noolaa dalka Ciraaq iyo hay-adaha u dooda arrimaha xuquuqda aadanaha, iyagoo ku doodayay in aanan wax caddayn ah lagu helin Ramadaan oo la iska dilay. waxaana sidoo kaleete dil lagu fuliyey madaxii maxkamadda kacaanka ee dalka Ciraaq Awad Hamid al-Bandar iyo sidoo kaleete wiilkii la dhashay Saddam Hussein oo isna ahaa madaxii sirdoonka ee xukuumadda Saddam Hussein, kuwaasi oo la daldalay bishii Janaayo sanadii 2007. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii aynu uga hadlaynay wixii ku dhacay xaakimkii dilka ku xukumay Saddam Hussein, Rauf Cabduraxmaan. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waanigoo inkaga tagaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.